بسم الله الرحمن الرحيم saaxiibkay baa wuxuu ii sheegay inuu lahaa adeer aad u da'weyn oo duq ah adeerkaasna uu lahaa carruur aan tukanin waxaa ka sii yaab badnaa inuusan adeerba tukanin oo uusan aqoonin jidka masaajidka wax khayranna suubin dadka salaada tukadana uu ku jeesjeesi jiray ilaa laga gaaray maalin maalmaha ka mid ah oo waxaan ku idhi adeer ma maqashay ninkii libaaxa ka cararay markaasuu yidhi maya waxaa jiray buu yidhi wiil duur cidlaa maraya wuxuu maqlay libaaxyo ama arkay cayrsanaya isla markaana wuxuu isku dayay inuu ka baxsado oo wuu cararay libaaxyadii ayaa u soo dhowaaday markaasuu isha wuxuu ka qaaday ceel biyaha laga cabi jiray waa hore ceelkii ayuu isku tuuray wuxuu qabsaday xariggii biyaha lagu dhaamin jiray isla markaana wuxuu gaaray ceelkii salkiisii marka uu nastay oo waxoogaa miyirsaday ayuu wuxuu isha ka qaaday mas aad u weyn oo damcaya inuu qaniino wiilkii ayaa baqay wuxuu isku dayey siduu uga badbaadi lahaa maska iyo libaaxii nasiib darra wuxuu isha ka qaaday jiir madow iyo jiir cad oo jaraya xariggii uu haystay wiilkii aad ayuu u baqay wuuna naxay arrintaas waxay ku dhalisay murugo wuxuu isku dayey xariggii inuu gilgilo si uu u cayriyo ama u cabsi geliyo labadii jiir arrintaas uma suurtagelin adeer aad ayuu qisadii oola yaabay nasiib wanaag wiilkii wuxuu helay malab aad u macaan wuxuu bilaabay inuu xariggii sii daayo malabkii cuno labadii jiir hilmaamo libaaxii hilmaamo maskii hilmaamo adeer ayaa yaabay oo wuxuu yidhi ma xaalad wuxuu ku jiray malab lagu macaansado markaasaan waxaan ku idhi buu yidhi adeer ninkii ma garanaysaa ninkii waa adiga libaaxina waa malakulmowdkii oo ku ciirsanaya maskiina waa qabriga labada jiirna waa habeenka iyo maalinta oo jaraya cimrigaada adeer aad malabkaasna waa macaanka adduunka iyo oo ku hilmaamsiiyey geerida iyo inay xisaab jirto adeer wuu baqay wuxuu bilaabay inuu markiiba kaco wuxuu aaday xaggaas iyo weysada wuu weysaystay adeer qalbigiisa waxaa ka buuxsamay iimaan keligiis ma wanaagsanaaninee carruurtiisina way u wanaagsanaatay wuxuuna tusaale u noqday dadka fiican isagoo cimrigaas jira ayuu wuxuu bilaabay inuu masaajidada dhiso isla markaana uu ka mid noqdo kuwa safka hore ku tukada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa walaalayaal inuu iimaanka nagu sugo salaada waa muhiim waxaan kaloo walaalaha ka codsanayaa inay qisadan sii faafiyaan ilaahayna ha u dambi dhaafo qof kasta oo sii faafiya